بسم الله الرحمن الرحيم ورمرتياد waxaa maanta oo taariikhdu tahay Abriil 23 sanadka 2020 ku soo dhamaaday wada hadal in muddo ah magaalada Nairobi uga socday wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam iyo madaxda golaha isbedel doonka Jubbaland wada hadalada oo ka soo bilowday magaalada Kismaayo iyo Nairobi oo ku saabsanaa sidii loo xalin lahaa ismaan dhaaf siyaasadeed ee ka dhashay doorashada bishii August 2019 ka dhacay Jubbaland wada hadalada waxaa si qoto dheer loogu gorfeeyay xaaladda amni siyaasadeed dhaqaale iyo bulsho ee ay guud ahaan Soomaaliya ku sugan tahay gaar ahaanna dowlad goboleedka Jubbaland labada dhinac iyagoo ka duulaya xaaladda adag ee Jubbaland marayso waxay isla garwaaqsadeen in ay lagama maarmaan tahay in khilaafka siyaasadeed la soo afjaro isfaham buuxana laga gaaro iyadoo loo marayo isqancin iyo isu tanaasul mas'uuliyiinta labada dhinac waxay isla garteen in loo hawlgalo adkeynta midnimada isfahanka isdhexgalka bulshada reer Jubbaland iyo miiska wada hadalka in lagu dhameeyo wixii tabasho ama khilaaf ah ee jira wafdiga madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland iyo madaxda golaha isbedel doonka Jubbaland waxay si buuxda isugu afgarteen u soo afjareen khilaafkii ka dhaxeeyay ee ka dhashay doorashadii Jubbaland ka dhacday bishii August 2019 ee madaxweynaha Jubbaland loogu doortay Axmed Maxamed Islaam waxayna ku heshiiyeen qodobada soo socda golaha isbedel doonka Jubbaland iyagoo tixgelinaya duruufaha adag ee Jubbaland ku sugan tahay una tanaasulaya danta shacabka waxay si buuxda u taageereen doorashadii Jubbaland ka dhacday bishii August 2019 ee madaxweynaha Jubbaland loogu doortay Axmed Maxamed Islaam in mudaxilaadka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland uu ahaado sida ku cad qodobka 7aad ee dastuurka Jubbaland oo qeexaya madaxweynuhu 2 mar oo kaliya inuu u tartami karo kursiga madaxweynaha Jubbaland wuxuu soo dhisayaa xukuumad wadaag ah oo tayo leh oo ay qayb ka yihiin golaha isbedel doonka Jubbaland iyadoo la ilaalinayo habka awood qaybsiga beelaha Jubbaland si loo adkeeyo midnimada wadajirka iyo isdhexgalka bulshada loona tirtiro raadkii khilaafka siyaasadeed waxaa la qaban doonaa kulamo iyo shirar dib u heshiisiin oo la isugu keenayo waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Jubbaland dowlad goboleedka Jubbaland waxay gudanaysaa waajibaadkeeda dastuuriga ah ee ka saaran sugidda amniga muwaadiniinta Jubbaland waxayna diyaarinaysaa howlgal ballaaran oo lagu xoreynayo deegaanada Jubbaland ee uu cadawgu haysto oo ay ugu horeyso magaala madaxda dowlad goboleedka Jubbaland ee Bu'aale si loo dardargeliyo howlgallada xoreynta degmooyinka maamulka Jubbaland ee gacanta al-shabaab ku jira waxaa la isku raacay in si wada jir ah looga qayb qaato iyada oo golaha isbedel doonka Jubbaland ay ka qaadanayaan door hogaamineed arrimaha abaabulka bulshada iyo xoreynta deegaanada cadawgu haysto waxaan dowladda federaalka ee Soomaaliya ugu baaqaynaa in la soo afjaro khilaafkii muddada soo jiitamayay ee kala dhaxeeyay dowlad goboleedka Jubbaland waxay diyaar u tahay xalinta khilaaf kasta si waafaqsan dastuurka dowladda federaalka ah iyo kan Jubbaland waxay diyaar u tahay wada shaqeyn buuxda waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubinta ka ah iyo guud ahaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed inay taageeraan heshiiskan waxaan ugu baaqaynaa dowladaha USA UK EU IGAD AU OIC Arab League Amazon iyo dhammaan dowladaha daneeya arrimaha Soomaaliya inay taageeraan heshiiska naguna garab siiyaan hirgelintiisa waxaan ugu baaqaynaa beelaha walaalaha ah ee duleedka dagaalka soo noqnoqday ku dhex maray deegaana dhanka koonfureed
magaalada Kismaayo inay si degdeg ah u joojiyaan colaadda macno la'aanta ah lana shaqeeyaan ciidamada amniga ee ku howlan daminta colaadaas. mahadcelin wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaan iyo madaxda golaha isbedel doonka Jubbaland waxay si wada jir ah ugu mahadcelinayaan dowladda Kenya dowrkii farsamo iyo fududeynta ee ay ku lahayd wada hadallada labada dhinac. si gaar ah waxaan u xuseynaa madaxda iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee reer Kenya. sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa madaxweynaha dowladda iyo shacabka Puntland oo dowr muuqda ka qaatay xalinta khilaafkan iyo xaqiijinta heshiiskan. waxaa kale oo aan u mahadcelinaynaa ummadda Soomaaliyeed saaxiibada iyo cid kasta oo gacan ka geysatay isla markaana dhiirigelisay midho dhalka heshiiskan. ugu dambeyn waxaan ugu hambalyeynaynaa guud ahaan muslimiinta gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed dhalashada bisha barakeysan ee Ramadaan. waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu bisheeda nagu gaarsiiyo nabad bashbash iyo barwaaqo. sidoo kale waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu ummadda Soomaaliyeed ka badbaadiyo aafada caabuqa corona 19 ee caalamka oo dhan dhibaatada ku haya. waxaana ugu baaqaynaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada reer Jubbaland inay iswada cafiyaan raacaana tilmaamaha ay bixinayaan xirfadlayaasha caafimaadka. waxaa saxiixay dhanka golaha isbedel doonka Jubbaland xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig, mudane Cabdinaasir Seeraar Maax, mudane Daahir Axmed Sheekh Cabdullaahi. dhanka dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam, madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland. waa mahadsantiin.